asxaab waan salaamay dhammaantiin. waxaan rabay inaan halkan ka yara sheego khaniisnimada ma la bedeli karaa, amba ninku intuu marka hore khaniis noqdo marka dambena gabadh guursado markaa street ma noqon karaa. taas wax macquula ma aha. way khaniisnimada wax lagu dhasho weeyaan, waa jiinka waalidkaaga aabbayo hooyadaabad ka dhaxshay. qof isma bedeli kartid. bulshadeena 5% ayaa khaniisiin ah, waa nature weeyaan. waayo ka waran qof hidrafiil street aad tirahdid gay noqo, taas macquul ma noqonayso. تكلي لبعض حنون مياه وحنو الإسقاطية الاسم قاتيو bulshadeena 5% ayaa ah hadii khaniisiin badan social media soo galaan hadaan soo galin ba lama bedeli karo. wax xanuun oo isqaatiyana ma aha. hadaa rabtid qof khaniis oo isqaarinaya rabtid inaad raadid wax noqonaya heterosexual oo gabadh baan guursanaya taa waad samayn kartaa, laakiin adigu gudahaaga waad sogtay waxa tahay. bulshada kugu wareegsan baad habi ka dhigaysaa, laakiin adigu gudahaaga uu ololayaa waa is ognahay. لما بدل كرا وانسكو داينا walaalahayga muslimiinta ah ee khaniisiinta ah ee maalinba message-ka soo diraya waxaan kula talinayaa inay diintooda islaamka sii wataan, inay masaajidka tagaan, inay ilaahay ka cabsadaan, inay wax u sameeynin, inay ku fakaraan dareenkaas ilaahay ku abuuray, inuu ilaahay ku abuuray isaga aan og sababta ugu abuuray. takale labaad quraan ku taala qoomuluud waxaan qoomuluuda tuuga, dadka dhaca, dadka xada, dadka dilaa, dumarkii caruurta ku kufsada, martida dhibaateeya, sidaas qoomuluud lagu ragay. marka xadiiska nabiga kaleey salaatu salaam ku soo warinayo leeyahay dadka sida qoomuluud dhaqmaha la dilo, macnaheedu marka waxay noqonaysaa dadka dhaca, dadka waxada, dadka khiyaamaha la dilo ee aan dadka kale dhibaateeya, amba dumarka kufsada, amba caruurta kufsada. macnaheedu taas may noqon kartaa. taas laftigeeda rabaa inaan culimada weydiiyo kuwa aan conservative ka ahayn. marka waxaan rabaa inaan aad si fiican looga fakiro. takale labaad waxaan sheegayaa bulshada Soomaalida maaragtay waxa ay u taqaanaan inay dadku dhibaateeyaan qof walba qof ka sii jilicsan madax kaga sii istaago hoos u sii dhigo. please qofka ka sareeya la dagaalan, qofka ka hooseeya ha la dagaalamin. takale labaad aan halkan rabaa inaan ka sheego waxay tahay waxa soo baxay sheekhiyo conservative Soomaaliya jooga oo leh dadka khaniisiinta ha la dilo, kuwa openka ha la dilo. marka nimankaas waxay rabaan in la dilo caruurta Soomaalida ee mustaqbalka soo dhalan doonta ee khaniisiinta ah, iyagoo positionkii ilaahay isfadhiisiyay oo dooranaya qofkee noolaan kara, qofkee dhiman kara mustaqbalka. marka iyaga laftigooda ilaahay hortiisa ayaan ku xisaabtami doonaa. waayo anagu waxaan qabnaa in ilaahay sida noo abuuray, xaq waxaan u leenahay inaan isdifaacno, xaq waxaan u leenahay inaan iska difaacno nimanka raba sidii Hitler inay dad dabar jaraan ilaahay abuuray adduunka ku nool. waayo Hitler wuxuu dabar jarayay dadka madow, dadka khaniisiinta ah iyo yuhuudda ayuu dabar jaray. iyaguna markaa xirabaan hadda inay dabar jaraan dadka khaniisiinta markii positionkii ilaahay isfariisiyeen rabaan